بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام وعن داوديال دمانتين بميلولي وجوجتان iyo si waliba muuqayagu idin soo gaarayo ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka qodobada hadii Allah uu diri ogolaado aad ku daawan doontaan warkayagana waxa ka mid noqonaya dawladda Kenya oo mar kale duqeymo culus ka fulisay gobolka Gado iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha deegaankaasi ra'iisul wasaare Roble oo qaladaad waaweyn dul hoganaya wada hadaladii dhawaan uu la galay farmaajo iyo khilaafka oo cirka isku sii shareeray madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dharbaaxa kulul ku soo tuuray madaxweyne farmaajo iyo farmaajo oo dhankiisa jawaab kale soo ridaya goor dhow waxa kale oo aad wararkayaga ku daawan doontaan hadii Allah uu dalihi uu raali ka noqdo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Dani waxa uu u jawaabay ama uu hanjabaado u diray wasiir ka tirsan wasiirada federaalka ah ee Puntland xiisad maanta ka taagan degmada Doolow iyo gudoomiyihii degmadaasi oo xilka laga qaaday sidoo kalena waxaad warkayaga ku daawan doontaan dawladda Faransiiska oo soo bandhigtay hub casri ah isla markaana ay doonayso inay dagaalo waaweyn kula gasho dawladaha awoodda leh ee dunida maantadan mar kale is arag wanaagsan waxaad daawanaysaan xulka wararka Soomaalida iyo caalamka hadii Allah uu diri ogolaado qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan ayaan goordhow idin dul mari doonaa hadii ay tahay markii kugu horeysay waxaan ka cusanaynaa inaad subscribe noo saarto kanalka sidoo aad wararkeena iyo barnaamijyadeena ay u gaaraan bulshooyinka Soomaaliyeed oo baahi weyn u qabo xaaladaha noocaani oo kala ah aynu ku bilownay ayadoo la wada og yahay khilaafka u dhaxeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble inuu cirka isku sii shareeray ayaa ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya garyaqaan Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu sameeyay qalad siyaasadeed oo weyn kadib markii uu ogolaaday in wada hadallo la galo madaxweyne Farmaajo Dr. Mukhtaar ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu la yaaban yahay waxa meesha yaalo oo ay ka wada hadlayaan Farmaajo iyo Roble sababtoo ah buu yiri ra'iisul wasaaruhu wuxuu haystaa laba qodob oo dastuuri ah oo cad marka aad fiiriso qodobka 103 ee dastuurka waxa ku qoran xukuumadda xilgaarsiinta inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra'iisul wasaare cusub la dhaarin doono ra'iisul wasaarihii hore ee xilka hayay iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah dawladda si xilgaarsiin ah sidoo kale qodobka 19 ee dastuurka muddaxilka madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed waa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka wuxuu xilka haynayaa muddo 4 sano ah oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo sida ku xusan qodobka 96 ee dastuurka ayuu yiri Dr. Mukhtaar marka waxaan la yaabanahay maxaa lagu wada hadlayaa waxa la yiri af magaalo warqad ayuu ku yaalaa qaanuunka iyo dastuuriga waa in lagu dhaqmaa hadii la wada hadlo waxa micnaheedu yahay wax baan kugu qabsanaa marka in la wada hadlo maba ahayn qaanuunka iyo dastuurka ayaa fasiraya awoodda qof kasta ayuu yiri Dr. Mukhtaar ayaa intaas ku daray in Farmaajo uu waqtigiisu dhamaaday 7 bil ka hor waxa kaliya ee uu haystaana ay tahay xushmad ah inuu kursiga ku simo madaxweynaha kale isla markaana aan wax shaqo ah ku lahayn howlaha dawladda hadii aan dastuurka la xushmeyn oo Farmaajo wali ay ka dhaadhacsan tahay inuu yahay madaxweyne dastuurka hal la tuuro oo markaa oo yiri aniga oo wadanka madaxweyne ka ah ayuu yiri Dr. Mukhtaar sidoo kale waxa uu sheegay in xitaa Farmaajo uu markaa uu haysan lahaa sharciyad aysan dastuurka gaar ahaan qodobka 9aad ee awoodaha madaxweynaha meelna uga qornayn inuu awood u leeyahay inuu kiis waa markaas iskiis magacaabo ayadoo oo aan u soo jeedin golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Mukhtaar ayaa ugu baaqay Roble inuu shaqadiisa wato isla markaana aan u joojin Farmaajo hadii kale uu dalka qalalaas u horseedayo dhanka kalena daawadayaal hadii aynu eegno madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo Farmaajo waxa uu dharbaaxa kulul ku soo gamay madaxweyne Farmaajo oo ku tilmaamay mid doqon oo duli ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markiisii ugu horeysay waxa uu ka hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble oo wali xal loo leeyahay khilaafkooda Dani waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu si cad baarlamaanka hortiisa ka sheegay inuu mas'uuliyadda amniga iyo doorashooyinka uu ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble kadib qalalaasihii Abriil dhacay ee ka dhashay isku daygii muddo kororsiga
27 May dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay xamar ku saxiixeen heshiis iyo habraacyo doorasho oo dhigaya in doorasho iyo amniga dalka inuu ra'iisul wasaaraha hogaaminayo runtii wixii laga heshiiyay inuu khilaafku ka yimaado waxay ceeb ku tahay dadkii heshiiskaasi saxiixay ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynaha Puntland Siciid Dani waxa uu intaasi ku daray waxaan rajaynayaa in heshiiska uu sidiisii u hirgalo isla markaana ra'iisul wasaaruhu uu mas'uuliyadda ka saaran doorashada iyo amniga uu markaa ku tala galo madaxweynaha waa markaasi madax kalena oo madaxweynuhu ugu horeeyo ay fuliyaan wixii ay balan qaadeen oo ra'iisul wasaaruhu siiyaan fursad uu shaqadiisa ku guto hadalka Siciid Dani ayaa imaanaya xilli uu wali taagan yahay khilaafka u dhaxeeyo Farmaajo iyo Roble kaas oo la sheegay inuu dalka u horseeday hoos u dhac dhaqaale iyo mid amni darro intaba maadaama labada dhinac uu mid kastaba u taagan yahay go'aankiisa uu ku taagan yahay waxaa burburay wada hadallo maalmihii tagay markaasi waa laga dhaxwaday labada dhinac kadib markii Farmaajo uu ku adkaystay in shakhsi isaga ku xiran loo magacaabo taliyaha NISA sidoo kalena la bedelo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya dhawaana uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaana horay waxa uu sheegay in Galmudug ay waqti badan ku bixisay oo kala dabqaadida Farmaajo iyo Roble isla markaana ay muddadaas ku dayacmeen howlo badan oo maamulka hor yaalay wasiirka ayaa cadeeyay in hadda Galmudug ay faraha kala baxday dhaxdhaxaadintii labada mas'uul wuxuuna garabka madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in dhankiisa ay waxba ka soo markaasi waayeen ama ay ka socon waayeen hadalka ama warkan ka soo yeeray Siciid Dani ayaa waxa uu imaanayaa xilli uu cirka isku sii shareeray khilaafka u dhaxeeyo ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo waxaa daawadayaal waxaan isla soo gaarnay qaybaha dambe ee warka iyaga subaxnimo ayna markaana aynu eegnay faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqeyn dhinaca cirka ah oo diyaaradaha dagaalada waa dagaalka dowladda Kenya ay markale xalay ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in duqeyntan ay xoogeeda ka dhacday deegaano iyo tuulooyin hoostaga magaalada Ceel Waaqalkaasi oo lagu arkay diyaarado joog hoose ku socda deegaanada la duqeeyay ayaa waxa kamid ah Warbeele markaasi Buraalaha Samaroole iyo Gogol علي مركز أو هالكاس أي يكونوا ليه ضد شعب إسلام مركان أو بدن حوالي رغته إلى وريدي لو كلسوني هي شاعيين وير كان لك عركة أو خساري سوجاري ريتك سوجارسي ريتك بل سمع عد أنت وجارسين هي ترى مركز ترى هاني سيدو كله وركا يا أنت سكودر يا إندلك وكسوجين هي دجانا الدقيقي أي بلعبين بركع si ay uga fogaadaan waxyeelo ka soo gaarto duqeymahaasi ilaa ay haatan ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan Gado iyo maamulka gobolkaasi oo ku aadan duqeyntii ka dhacday halkaasi sidoo kale dawladda Kenya oo ciidamadeedu mar waliba ay ka fuliyeen duqeymo deegaanada gobolka Gado ayaa ilaa ay haatan war rasmi ah ka soo saarin balse waxa la aaminsan yahay inay aaminsan yihiinba in la dagaalameen dad al-shabaab ah sidoo kalena ayaga oo loo yahay inay xasuuq u geystaan inta badan dad shacab ah halkaasi ku nool isla markaana xoolo dhaqato ah warka iyaga saaxiibayaal Soomaalida iyo caalamka ku saabsanaa oo xogihii ugu dambeeyay ay kugu soo gudbinaynay saaka waanaga inta nabadgelyo nala jooga xulka wararka iyo wareysida like share comment fadlan nagu xirnaaw maasanid